magaalada Berbera waa magaalo aad u horumarsan oo leh bilic iyo wadooyin casri ah. barnaamijkan kooban waxaynu ku eegi doonaa kulan wada tasho muddo 2 maalmood ka soconayay xarunta ururka Yofenko ee magaalada Berbera. kulankan way soo qaban qaabisay dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soomaaliya ee waxa dib u eegis iyo qiimeyn lagu sameeyay siyaasadaha waxbarashada caafimaadka iyo shaqada. waxaana kulankan ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda dawladda iyo dhalinyarada Soykaf Berbera oo ah dhalinyaradii lagu tababaray isla xisaabtanka bulshada. barnaamijkan waxaan karnaa qof kasta oo reer Soomaaliland ama qof kasta oo bulshada kamid ah ugu baahan yahay waxay qofku inuu ogaado wixii xaq u lahaa inuu helayeen waayay dadkii uu doortay barnaamijkii uu doortay sida ay u fuliyeen tabarka markii aanu qaadanay annaga bulshada kala noqonay wixii la nagu tababaray oo ahaa waxaan aan soo faa'iideysanay in bulshada u qabano magaalada Berbera waxaan karnaa waa gobolka ama magaalada ugu mashaariicda badan ka socda sanadkan waxaan doornay inaan ka hadalno barnaamijka ballaarinta deegaanka Berbera oo ah isha dhaqaale ugu weyn ee Soomaaliland leedahay kadib waxaan u kuurgalnay oo wareysanay horta barnaamijkan sida loo fulinayo cida heshay sida ay ku heshay waxaan wareysiyo kooban iyo qaar waaweyn bala yeelanay shaqaale weynaha iyo cida ay khusayso oo ay ugu horeeyaan maamulka degmadu markii ay warayaan waxaan wareysanay maamulka shirkadda DP World kadibna mashruuci ay DP World ayaa xayisiiyay inay dekada ballaarinayaan kadibna Shifa ku guuleystay. Shifa waa shirkad caalami ah oo dekadaha dhista waxaan uga sii gudubnay dhinaca iyo Shifa oo tagnay sayidka ay wax ka wadaan ama sayidka dhismo ka socdo inay fuliso 400 mitir lagu korinayo iyo underground container la dhigayo. waxaan wareysanay oo ayadana wax ka weydiinay arrinka dadka shaqaalaha ee laborka ama injineerada jooga Soomaalida ama dadka kale ee jooga waxay warbixin guud naga siiyeen mid gaar ahaaneedba sida barnaamijku u socdo. waxaan isla qaadanay barnaamijkaas si loogu talagalay ugu macquulsanayd inuu socdo oo gabagabo ilaahay baa maad kale mar labaadka soo umbrella barnaamijka fulineysay iyo hay'adda maalgelisay UNDF oo aan leenahay barnaamijku waa guuleysanaya insha Allah. barnaamijku waxaan rajaynaynaa in la ballaariyo oo meel walba gaaro tusaale ahaan qayb walba bulshada kamid ah